Assalaamu calaykum. Diinta Islaamku waxay soo gashay geeska Afrika ka hor intayna Maka mooyee meel kala gaadhin. Madiinana ha ahaatee oo xataa hijradii Madiina waxaa ka horreysay hijradii asxaabta ee dhulka Xabashida. Haddaba markii uu dhintay boqor Najaashi ma sii socon xidhiidhkii diimeed ee u dhexeeyay dowladdii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo boqorradii xilka Xabashida qabtay. Boqor Najaashi dabadii hase ahaatee xidhiidhkii ganacsi, kii bulsho iyo isu socodkiiba halkiisii ayuu ka sii socday. sidoo kale dhimashadii nebiga sallallahu calayhi wasallam kadib markii ay diinta islaamku caalamka ku faafaysay geeska Afrika waxay ka mid ahayd meelihii ay diinta islaamku sida nabadgelyada ah ay ugu faaftay iyo bilaa dagaalka ah ay ugu fiday. waxaana yimid xeebaha geeska Afrika muslimiin ganacsi iyo dacwadba isku dhex waday iyo sidoo kale qaar ka soo baxsaday dagaaladii dhex mari jiray dowladihii islaamka ahaa sida Umayyiyiintii, Cabbaasiyiintii, Cusmaaniyiintii iyo wixii lamida ilaa ay ugu dambeyntii dhul badan oo xeebaha geeska Afrika ku teedsan ay dadkii deganaa diinta islaamka rabitaankooda ku qaateen si fiicanna ay isku dhex galeen muslimiintii soo tallaabay kadib dadkii diinta qaatay iyo muslimiintii soo tallaabay oo iswata ayaa ganacsigii iyo dacwadiiba ku sii fidiyey dhulka xeebaha ka durugsan ee geeska Afrika. waxaa iyadan xusid mudan in mawjado geedi ah oo qabiilooyin loo yaqaano Beeja oo muslimiin ah ay iyaguna ka soo tallaabeen dhinaca webiga Niil iyo dhinaca boqortooyadii Nuuba oo ku taalay qayb ka mid ah dhulka Suudaan waxaana isku fidiyeen xeebaha Eritrea iyo Badda Cas ilaa waqooyiga boqortooyada Aksum. sababaha ugu waaweyn ee sahlay fiditaanka diinta islaamka ee geeska Afrika waxaa ka mid ahaa 1. boqortooyada Aksum oo ku mashquulsanayd la dagaalankii Yuhuudda Sagwe oo markii dambe boqortooyada Aksum riday xilkiina kala wareegtay. 2. kakanaantii qaabka diinta Kiristaanka qaysasku u fasirayeen iyo fudaydka fahamka diinta islaamka oo si fudud dadku u fahmeen soona jiidatay ilaa waa diin xaqa ah. 3. muslimiinta oo xambaarsanaa ilbaxnimada xilliga dunida ugu weyneyd. 4. akhlaaq wanaagii ganacsatada muslimiinta. 5. muslimiinta oo la dagaalamaysay is-adoonsiga. sida aan la socono baryaha kiniisadda ayaa boqortooyada hoggaanka u haysay waxayna kiniisaddu ahayd meesha ay arrintu ka go'do iyadana gacanta ku haysay dhammaan ilaha dhaqaalaha waxayna lahayd dhul aad u ballaaran. tacliimtuna waxay ahayd oo keliya ta kiniisadda. haddaba isbahaysigii kiniisadda iyo boqortooyada xukunka haysa ayaa waxay culays iyo dhibaato weyn ku haysay shucuubta ay maamulaan iyagoo hanti fara badan oo baad ah ka qaadi jiray. arrintaa oo keentay in ay dadku iska nacaan wadaadada Kiristaanka hogaaminaya iyo boqortooyadoodiiba waxayna in badan hiil ka dayeen diintan islaamka ee fudud waxaana dadka soo jiidatay naxariista iyo akhlaaqda wanaagsan ee muslimiinta.